kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo ixtiraamka inaga mudan oo caalamka meel walba oo aad ka joogtaan iyo xilli walba ay idiin tahayba waqtiga ha idiin wacnaado waayahana ha idiin samaado waa walaalkiin oo idinla mar kale ii muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin sida qiimaha weyn ee markaas aad janalka ugu xirantihiin ama aad u garab taagan tihiin oo markaas aad noogu ixtiraamtaan waan idinkaga mahadcelinayaa sharafi ku noolaada meel walbood ku sugan tihiin haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markii ugu horeeyay aad nala kulantana subscribe noo saar kambaleelka furo fideogana sidaad u dhan tihiin noo like gareeya siina share gareeya idinka xaggiina ayay idiin deynayaa oo idinka ayaan markaa wax idinku nahay oo markaa beesha aan jecelnahay inaan wada gaarno ayaan rajeynayaa waad mahadsantiin dhammaantiinba meel walbood ku sugantiin caafimaad qab iyo waxaan idin rajeynayaa mar walbaba inaad farxad ku sugnaataan inta markaa inaga xanuunsanna caafimaad alla inta markaa in caafimaad qabtana ziyaada alla oo ilaahay ha u ziyaadiyo waad mahadsantiin maanta muuqaalka ma jecleen oo muuqaalka hore goos ayaan kaga soo dhex hadlay laakiin maanta waxaan isku dayayaa inaan si toosa usoo qaato anoo jecel markaa in aan bal in uun iyo waxa aan ka rabo inaan ka iraahdo inaan ka dhaho ayaan rajeynayaa oo mar walba waxaan rajeynayaa haddii ay suurtagal inoo noqoto oo waafajinta ayna waafaqdana in aynu markaa wax uun aan ka bedeli doono xaalka adag ee maanta meesha uu maraya aanan marnaba indhaha laga qabsan karahayn marka waxaan rajeynayaa in aan wax uun aan ka bedelno ama wax uun aan ka sameyno ayaan rajeynayaa horta marka ugu horeyso xaaladda guud ahaaneed ee markaa aan doonaya inaan ka hadlo waa Naciimo Joker iyo Farxiyo Kabayare oo aan ognahay heerka iyo maanta la isla marayo iyo halka la gaaray barisamaadkan waxay ahaan jireen laba saaxiib oo markaa afka wax ku kala goosto aadna isugu dhow oo saaxiibo markaa runa isku ah laakiin laga dhex shaqeey ugu dambeyn waxaa lagu guuleystay in la kala irdheeyo laakiin xaalka maanta meesha uu marayo meel laga aamusi kara maaha marka waxaan doonayaa horta muuqaalkan daawasho wacan suwaagayga caadiga aan la imaado wiilwiilka ahna nina isu ekaysiinoosa markaan kalaasig u labisano guntiino ama dirac qurux badan soo xiranana ilaad eber nooga dhigaysid maasha Allah nooma qortin sidaas oo wada aragteen hadalla intii ugu horeysay waa iska caadi ahayd oo wax loo adkeysan karo yani iyadoo aanan ahayn haddana wax uun baa si iska sii ahaa oo xeerin iyo waxaa jirtay laakiin maanta waxaad moodaaba in weerarka amaba in heerka la gaarsiiyay arrinka dartii uu marayo meel aanan marnaba aanan qof caadi ah ka aamusi karayn waxaa isweydiin mudan waxaa jiraan fanaaniin fara badan oo Mareykanka ku sugan oo markaa asxaab dhow la ah labada gabdhood waxa ay u kala qaban laayihiin ama ay isugu fiirsanayaan dad badani su'aal ayay ka keeneen ma iyagaaba raalli ka ah oo markaa maajkan u ballamiyey mise run ahaantii waxa ay iska diidayaan in ay baaba'o ama sheekadan gebi ahaanba ay meesha kusoo idlaato waa arrin meesha taagan oo ay dad badan imaankooda maanta iska weydiinayaan oo aysan meel ay kusoo bandhigaan aysan garanhayn maxayse tahay sababta la iskugu daawado laba qof oo magac leh marka la arkay ilaa isla dhiiqaystaan maxay tahay sababta la iskugu daawado oo dadka u dhow markaa ama dadka asxaabta dhow la ah ay u kala gaari waayaan iyagoo aan ognahay dadka walba oo adduunyada maanta qof walba oo saaran in ay jirto qof uu markaa hadal ka maqlo amaba wixii yimaado uu markaa wax ka dhihi karo maxay tahay sababta guud markaa oo aanan waxba looga qaban karayn iyo sababta guud markaa aanan wax yani wada hadal looga furi karayn intaasi waa isweydiinta weyn ee markaasi meesha taagan iyo arrimaha sida ay u dhacayaan iyo dadka markaa iyaga ka agdhow sida ay isku daawanayaan dad badan waxay aaminsan yihiin barnaamijkani maanta qasan in arkeeno meesha uu taagan yahay inuu maalin halkaani kasii dhadhawaa ay jirtay ama soo martay waa markii ay sheekadan bilaabanaysay waxaase su-aal kala mudan markii ugu horeysay waa dhowr bilood miyaa ilaa iyo sanad ka hor ayay ahayd dagaalkii ugu horeeyay oo markaa labadood ka dhex qarxay oo markaa si toos ay iskugu weerareen waxaana markaa intaa wixii ka dambeeyay iska damay colaadii markaa labada gabdhood u dhaxaysay maanta sadib ay usoo noqotay oo maalmo dhaweytoole ayaa waxaan aragnay in ay arrinkooda uu soo cusboonaaday iyadoo dadka dhanba ay ku dhex wareereen sababta markaan soo celisay iyadoo aan ognahay in la damiyaa aysan markaa dadka shaqeeya oo maanta loogu mahad celin karo inaysan jirin laakiin iyada uun iska baaba'day sheekada siday u socotay ay iyada iska soo idlaatay laakiin dad badan waxay isweydiinayaan waqti xaadirkan maxaa soo cusboonaysiiya waxay wararka qaar ay sheegayaan maseer iyo hinaase inuu ka kacay dadka qaar waxay leeyihiin waxbaa jiro isku soo wada duub meesha waxa ay taagan waa wax aanan marka hore la xalinin yacni
marka ugu horeysa waxba lama xalin oo haddii arrinka meeshiisa loogu tegi lahaa ama waxa uu yahay laga gungaari lahaa oo ay dad ka fariisan lahaayeen markaa sheekadan la dhammeyn lahaa way adkaan lahayd inay mar labaad sheekada soo noqoto. laakiin halkan waxaa ka cad inaysan jirin dad kala dhex galay oo iyaga iskood leh unay iska daayeen caddaatay. maanta se ay soo celisay arrinkaasi wax walbaba ha noqday wixii soo celiyaba in guud ahaan inta layska soo duuduubo meel la wada dhigo kadib xalka gabdhaha la raadiyo si guudna meel la isugu wada keeno kadibna arrinkoodaas la dhameeyo waa sida ugu sharafta badan. markaasna aan ka cabdiwahaab ahaan aan talin lahaa oo dad badan oo ka agdhowaa jiraan, dad badan oo agdhowaanshiyi iska daayay ay wax ka maqlaana jiraan. inta ay markaas sida iskugu daawanayeen xitaa waan ogeen meelaha la isla gaaray, heerka laysla maray iyo meelaha markaa layska duqeeyay. waa runtii social mediaha waa meesha keliya ee soomaalida inuu marmarka qaar isdhehaysidba in social media wax lahayo dhinaca soomaalida laga mamnuuco waaba xaq. saanay tahay hadda haddii aan ku yiraahdo ka waran wadanka lagama ogola oo aada looma ictiqaadsana, haddana waxaad aragtaan meelaha ugu badan ee jamboolada laga tuurayo inay dadka tuuraya ee soomaalida yihiin. marka sidaas darteed haddii ay free ahaan lahayn lacagtooda markaas si toos ugu soo dhici lahayd maxaa malayn lahayd, waxa ay isku rafin lahaayeen meel walba qoorta isku geli lahayd si ay markaa views u abuuraan. labada gabdhood waxaan rajaynayaa inta ka agdhow, inta aqoonta u leh, inta markaa awoodda u leh oo awoodi karto in ay waxaan dhammaysaa inay dhammayso. sidaan ogeyn kooxa la sameyn rabay, kooxda waa idiin sheegay oo xidigaha geeska qaybta Mareykanka joogta is urursi ku jireen. is urursigaasa waxaa la sheegay inay labadan ilka casi iyo farxiyaba ay kamid ahaayeen kooxda markaa la doonaya in xagga laga abaabulo. sidaa darteedna ay markaa Naciimo aysan u jeclaysan inay iska mid noqdaan. buuq halkaas oo ka kaca la leeyahay, halkaasay hawsha kasoo uskantay ee kasoo bilaabatay. sidaasay dadka qaar ay markaa iyaga ka agdhow ay sheegayaan. laakiin wax walbo ay noqotaba labadan gabdhood waxay isku ahaayeena ogeyn, siday isku ahaayeena ogeyn, meesha isla soo mareena ogeyn, xaalkooda meesha isla soo gaaraa ogeyn, sida ay markaa iyaga isku soo garab taagnaayana ogeyn. wax walba oo dhacaa marka maanta kuma qurux badnayn in laysku fiirsado in waqti la gelin waayo oo lagu maslaxeeyo iyaga. fanaaniin fara badana Mareykan ku sugan, fanaaniinta Mareykanka ku sugan waxaan leeyahay waa ceebtiina in maanta la arko fanaanad Soomaaliyeed iyo macnaha kumadiyan Soomaaliyeed is haysto, haddana Mareykan agtiina ha joogo, haddana laga yaabo in magaalo qaarkood isla joogaan, haddana aadan kala qabanhayn. idinkay ceeb idin tahay, keligood ceeb uma ahan. intaad nafis gelisaan oo aad khatar iska dhigtaan oo aad dhiig isku yara furtaan, gabdhahana kala maslaxdaan, waxaad ka talisaan wanaaga. mar walbo wanaaga ka talisaan waa mar walbo horumar gaaraysaan. mar walbo xumaanta ka talisaan waa mar walbo baaba'iina iyo burburkiina nololeed oo bilow yahay. marka waxaan rajaynayaa inaan wax qaadan doono oo inta u dhow aan ku sheergarayn doono, bal si ay wax uga qaban karaan. haddii ay ka qaban karaan annagaaba ka codsanaynaba inay wax ka qabtaan. heer sircaad idinkan wanaaga waa ila qabtiina rajaynaa intaysan meel kasii xun gaarin, intaysan wax dacwada hadda la sheegaya horta ilaahay inuu kala qaboojiyaan rajaynaya. aad baad u mahadsantihiin reer sircaad, meel walbood ku sugantihiina guuleysta ayaan idin leeyahay. fideogan la garaysiina sheer garaya marba haddii aad intaa nala soo gaartay waxaan ku leeyahay nabad diino.